الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي في الله، الله تبارك وتعالى ابن آدم كوحو كوركي سوكو قري وقتي او نولادبا iyo inuu jiraba inuu dhiman doono, geeri baa u dambayn doonta. ruux walbana wuxuu ku xidhan yahay wixii uu sameynayay intuu noolaa, hadduu u fiicnaa iyo haddii u xumayd. waxayna ku xidhan tahay oo gabagabadu yahay iyo arintu isugu biyo shubanaysa khaatumada iyo maxaa kuu dambeeyood ku dhimatay. wuxuu nabigeenu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh inay jiraan dad cimrigooda camalkii janno lagu geli lahaa samaynaya, dadaal badan ku bixinaya. markay geeridooda wax yar ka laaban tahay ayay isbedelayaan, markaasaa waxay bilaabayaan camalkii naarta lagu geli lahaa. isagaasay ku dhimanayaan oo saasay naar ku galayaan. mid kalena cimrigiisa iyo noloshiisa wuxuu u badnaa oo samayn jiray wax naar lagu galo. marka cimrigiisii wax yar ka laaban yahay ayaa isbedel imaanaya xagga rabbiyo, markaasuu dhankii wanaagga isu bedelaya. camalkii jannada lagu galay khayr buu bilaabaya, asagaasuu ku geeriyoonaya, sidaasuu janno ku galaya. arrintu maxaa laga wadaa? arrintu waa khaatumada. maxaad ku dhimatay? ma adoo khayr ku jiraad ku dhimatay oo geeridu kuu timid, mise adigoo shar iyo xumaan hayay geeridu kuu timood ku geeriyootay? waxa aad ku dhimatay bee arrinkaagu noqonaya iyo mustaqbalkaagu. waata nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiid kale ku tilmaamayo oo uu leeyahay innama alumuuru bikhawaatiimiha. arrimaha dhammaantood waxay isugu imaanayaan oo isugu soo biyo shubanayaan khaatumada iyo gabagabada. waxay la mid tahay buu nebigu sal alla lay wasalam sidii weel oo kaleu ku miaaliyey. weelka haddii salkiisu fiican yahay korkana waa fiican yahay, hadduu salku hallaysan yahay oo fasaadsan yahayna korku waa hallaysan yahay waa fasaadsan yahay. sidaas daraaddeed khaatumada iyo meeshay arrintu isugu imaanaysa gunta u ah waa gabagabada wey. halkaasi hadday ku hagaagto waad hagaagtay, hadday halkaasi kaa hallowdana wax kale ku anfici maayo. innama alumuuru bikhawaatiimiha. khaatumo wanaagsan iyo noloshan gabagabadeediiyo markaad ka sii socoto inay wanaag kuugu dhammaataay waa nicmo weyn oo ilaahay laga heli karo tabaaraka wa tacaala. waana arrin dadkii saalixiintaha ay raadin jireen, bal ambiyadii ilaahay baa raadin jiray tabaaraka wa tacaala. allah wuxuu ina amray tabaaraka wa tacaala oo inoo sheegay qur-aanka kariimka, walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. islaamnimo ku dhinta, waxaan islaamnimo ahayn ha ku dhimanina. markaad dhimanayso islaamnimo iyo iimaan iyo khaatumo wanaagsan ku dhinta buu rabbi leeyahay tabaaraka wa tacaala. nabiyullaahi yuusuf calayhi wacalaa nabiyina salaatu wassalaam kamaa fii suurati yuusuf, markii rabbi inooga sheekeeyey taariikh dheer iyo nolol dheer oo imtixaanaad ahayda uu soo maray, aakhirkiisii markii ugu dambeeyeyna uu ku dambeeyey kursi iyo boqortooyo iyo madaxnimo, allah tabaaraka wa tacaala wuxuu inoo sheegay ducadiisii inay ahayd rabbiyow islaamnimo igu dil, saalixiintii iyo dadkii waan wanaagsanaana iga dabageeyo i haleeshii. waa nebi ambiyada ilaahay ka mid ah. nebi maxamedna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi sidaasay ahaan tirtay ducadiisa. oo waxaa ka mida ducooyinkiisa caankaee ummaddana uu jiday nebigu sal alla lay wasalam inuu ilaahay ka magangeli jiray salaada gadaasheeda, ataxiyaadka gadaashiisa inuu ka magangeli jiray min fitnati almaxya waalmamaat. geerida fitnadeedan ilaahu magankaaga ah. geerida fitnadeedu waa khaatumo xumo, waa inaad si yani wax wey aan sax ahayn u dhimato oo noloshaada aad si khariban ku dhimato. ilaahay buu ka magangeli jiray nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh. khaatumada wanaagsan marka waa nicmo weyn oo ilaahay bixiyo. ilaahay tabaaraka wa tacaala nolosheenna wanaag allah inoogu khatimo oo ilaahay tabaaraka wa tacaala xumaan iyo sayi'ah inaga ilaaliyo. asbaab bay leedahay, ilaahay baa bixiya, laakiin shay walba asbaab buu leeyahay iyo jid loo maro.
jidkiisii ninkii qaadana oo ilaahay tabaaraka wa tacaala midhaha iyo waa siiyaa wuxuu raadinayo ruuxii jidkii mari waayo laga waayana ilaahay tabaaraka wa tacaala waa qadiyaa wa tilka sunnatullah asbaabtan ilaahay wuxuu inoogu jideeyey qaata oo ku gaadha natiijada ku gaadha isagaa natiijada bixiya midhaha ugu dambeeya isagaa bixiya waxa la doonaya isagaa bixiya laakiin jid loo mara buu ilaahay inoo jideeyey tabaaraka wa tacaala waxaa ka mid ah asbaabta khaatumada wanaagsan lagu gaadho ee ilaahay ku bixiyo tabaaraka wa tacaala inaad mar walba iimaankaaga kobciso ood iimaankaaga ka warhayso qalbiga ku jira ood qalbigaaga hagaajisood ka dadaasho lianna iimaanku markastoo uu siyaado waxay u dhowdahay ruuxaasi inuu khayrka ku sugnaado kuna geeriyoodo allah qur-aanka wuxuu inoogu sheegay dadka mu'miniinta iimaankoodu dhammaystiran yahay rabbi tabaaraka wa tacaala wuu sugaa adduunkana waa sugaa aakharana waa sugaa adduunka intay ku nool yihiinna wanaaggiyo iimaanka ilaahay ku sugaa markay geeriyoonayaanna iimaankii ay adduunka ku noolaayeen baa lagu sugaa qabriga markay galaanna iimaanka iyo imtixaanka marka laga qaaday iimaanka iyo wanaagga lagu sugaa ilaahay baa suga tabaaraka wa tacaala maxaa lagu siiyaa iimaanka lagu siiyaa iimaanka baa ilaahay ku bixiya tabaaraka wa tacaala marka inaad iimaankaaga kobciso iimaanka asbaab kobcisaa jirta isaga laftiisa qur-aanka iyo sunnadu inoo sheegeen munaasabaadna aan kaga hadal qodobka labaad waxa weeye iyo sababta labaadeed ku gaari karto in khaatumo wanaagsan aad ku geeriyooto alla ka cabsi qalbigaaga in aad geliso ka buuxiso ku sugto allah cadamadiisa iyo weynayntiisa iska ilaalintiisa inaad iska ilaaliso cuquubadiisa iyo cadaabkiisa inaad raadiso allah tabaaraka wa tacaala ridihiisa iyo jannadiisa qalbigaaga inuu ilaahay ku weeye xubnahaagana inaad ilaahay uga cabsato tabaaraka wa tacaala wuxuu kaa reebayna ka tagto wuxuu ku farayna la timaado addoonka sida ilaahay uga cabsada hadduu keligii yahay hadduu cidlo yahay haddii lala joogo ilaahay tabaaraka wa tacaala khaatumo wanaagsan buu ugu khatimaa lianna ilaahay qur-aanka kariimka wuxuu inoogu sheegay cidhibta wanaagsan waxaa iska leh dadka ilaahay ka baqa alla ka cabsiga cidhibta wanaagsan ee ugu dambaysa iska leh xaaladaha khatarta marka la gaadhana oo arintu cidhiiri kula gashana oo meelaha halisa aad gashana waxa lagu badbaadayo alla ka cabsiga waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja makhrajkaasi adduunka khaas kuma ahe meel alla meeshii cidhiiri aad gasho dhan makhrajkeedu sabab waxa uu alla ka cabsiga tabaaraka wa tacaala sidaas daraadeed inaad allahaaga ka baqdood iska ilaaliso oo aad rabbiga weynaysood qadarisaay qalbigaaga iyo xubnahaaga iyo noloshaada waa sabab muhiim oo keeni karaya in ilaahay tabaaraka wa tacaala khaatumo wanaagsan nolosha kuugu dhammeeyo sababta saddexaad waxa weeyaan amalka saalixa ku dadaal taacada ilaahay ku dadaal salaada ku dadaal sadaqada ku dadaal xajka ku dadaal soonka ku dadaal diinta faafinteeda ku dadaal khayrka ku dadaal oo u hormaro dadka uga dheere isku day inaad tartanka gasho dib ha u noqonin sababtu maxay tahay fa inna qawman la yazaluna yata'akharuna hatta yu'akhirahum Allah haddaad dib u gorasho bilowdo nabigu wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam dadka zuuli maayaan inay dib u sii guranayaan ilaa ilaahay dib u dhigo tabaaraka wa tacaala sideedaba dib dhaca iyo khaatumo xumadu wuxuu ka bilowdaa hal qodob ah kadibna wuu kula durkaa meel xun baad ku dambaysaa marka sidaas daraadeed khayrkiiyo daacada ku dadaal khaasa markaad noloshaadu soo dhawaato goor inta lagu soo jiro ma ogid laakiin ugu yaraan marka cimrigaagu uu sii weynaataba oo maalmo kuu sii kordhaanba daacada ilaahay siyaadi nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh cimrigiisa aakhirkiisii waxaa lagu soo dejiyo lagu dareensiiyey suuratu nasr allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi idaa jaa nasrullahi waalfatx ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ودرين نبي صلوات ربي والسلام عليه وحل ليه سيدة حديث عبد الله بن عباس أرمها مركات أركته قول إلهي مركو كسيوت فرشده هشو قال لنا قول كاسيو
diintii oo qabaa'il iyo dad far badan soo galayaan aad aragto xaaladda geeridaadii baa soo dhawaatay maxaan sameeyaa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba tasbiixda iyo istighfaarta iyo xamdiga badsalay nabiga sallallahu alayhi wasallam laana ilaahi tabaaraka wa taala sida xadiidka nabigeena ku sugan markuu adoonkiisa markuu rabbi khayr la rabo allah tabaaraka wa taala uu shaqaalaystaa hawl buu u dirsadaa waxay saxaabadu yiraahdeen rasuulka ilaahay see ilaahay u shaqaalaystaa maxaa laga wadaa wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam marka cimrigiisu soo dhow yahay baa amal wanaagsan la waafajiyaa amalkaas ku dhintaa sidaas nafta looga qaadaa ka ilaahay khayr buu la rabaa tabaaraka wa taala maxaa keena amalka wanaagsan adoonka noloshiisa hadduu caadaysto taacad iyo khayrka inuu siyaasado waxay u badan tahay inuu ku dhinto dhanka kale iska ilaali wixii macaasi ah dunuubta iska ilaali haddaad gashana ha ku sii soconina ka toobadkeen ha caadaysanin ha badsanin ha la qabsanin laana haddaad la qabsato caadi ku noqdo dunuubta oo ay noloshaada ka mid noqoto waxay u badan tahay adiga oo ku dhex jira inaad ku geeriyooto waa khaatimo xun marka imisa macaasi iyo dunuub ay ku jiraan ay sabab u noqoto inay khaatimadu ka halowdo oo ay ku dhintaan imisa markii nafta ay geeridu ku timid oo uu halis galay inta loo laqinay shahaadada laa ilaaha illa allah war laa ilaaha illa allah dheh lagu kari waayo hees iyo music iyo isruuxid iyo qashinkii adduunka ku hayn jiray ayuu maaweelo ka dhiganaya war laa ilaaha illa allah dheh maba dhihi karo war laa ilaaha illa allah dheh maba dhihi karo leesh laana wax weeyaan ruuxu wixii uu caadaysto waa ku geeriyooda sidaas daraadeed dambiga ha ku adkaysanin dambiga ha ku sii soconin dambiga ha caadaysanin u toobadkeen rabbi tabaaraka wa taala ruuxa soo noqdo toobad keenay ruuxan dambi lahayn oo kale la mid yahay ilaahay toobada waa aqbalaa ka soo laabo waxa kamid ah asbaabta keeni karta in khaatumadu ku hagaagto in aad mar walba xusuusnaato qalbigaaga ayna ka bixin geerida iyo waxa ka dambaysa hays halmaamin ghafla iyo nisyaan yeysan kugu dhicin waxaad xusuusnaataa mar walba inay geeri kugu soo socoto xilli walba daqiiqad walba meel walbana lagu qaban karo si kada aad u dhiman karto sabab aad yeelan karto sabab aan la garanaynin ba u dhiman karto ku talagal وبالتالي هداد u diyaarsan tahay inaad geeriyoonayso dhimanayso shaki male mar walba diyaar baa tahay mar walba dadaalkaad wadaa sidaas daraadeed baa nabigeenu wuxuu salawaatu rabbi wasalaam alayhi badiya geerida xusuusteeda badiya buu nabigu salawaatu rabbi wasalaam alayhi isla macnahaas nabigu amray salawaatu rabbi wasalaam alayhi qubuurta siyaarta oo dadkii dhintay iyo daartooda soo fiiriya laana waxay keenaysaa markaad qubuurta soo aragto magaalo dhan oo shalay dadkii kula camirnaa suuqyada camirahay guryaha dhisanay dadaalay orday maanta godadkanay ku jiraan waxay ku sugan yihiin Allahu a'lam waxaad la soo noqonaysaa qalbigaaga oo jilcay ishaadiyo ilmaysay isbedel kugu dhacay sidaas daraadeed geerida xusuusteeda badiya waxay keeni kartaa khaatimo wanaagsan iyo dhanka wanaaga inuu ruuxu u bato waxa kamid ah asbaabta iyada inaad mar walba noloshaada ku noolaato marna cabsida ilaahay tabaaraka wa taala iyo cadadiisa iyo cadaabkiisa baqdinteedu ha kugu jirto marna rajee ilaahay naxariistiisa ridihiisa wanaaga ilaahay ee ballaadhan ee gudaha weyn rajo ka qab waha quusanin dhanka kalena ha isdhiganine allah tabaaraka wa taala cadaabkiisa iyo cadadiisa waa inaad ka baqdo labada dhinac u badanne haddaad dhanka cabsida u badato ka tan badatana waxay keeni kartaa inaad quusato lamana rabo haddaad mar walba dhanka rajada u badatana waxay keeni kartaa inaad aamin ka noqoto iska dhigato ilaahay makrigiisa iyo dhagartiisa labaduba waa khasaaro weyn waa maxaa la rabaa khadka dhexe ku soco xagga midna ha u dheeliin nabigeenna salawaatu rabbi wasalaam alayhi nin dhalinyaro abu u soo galay
wiilka geeridii baa hayso naf baa haysa waana wiil dhalinyaro ah nabigu wuxuu ku yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wal balwaram maxaa dareemaysaa wuxuu yiri rasuul ilaahay ow rajo ilaahayna waa qabaa dambigaygiina waan ka baqayaa dunuubtaan galayna baqdin baan qabaa ilaahay naxariistiisa waasacana rajaan ka qabaa nabigu wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi meeshan oo kale labada arimood ruux qalbigiisa kuma kulmaan illa haday ku kulmaan alla tabaaraka wa taala wuxuu ka baqayana waa ka badbaadiyaa wuxuu rajaynayana waa siiya khaasatan markii lagu soo xaadiro geeridu kugu timaado dhanka rajada badi maxaa yeelay nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu leeyahay midkiina yuusan dhimanin illa isagoo malaha wanaajinaya mooyee malaha ilaahay uu ka malaysanayo isagoo wanaajinaya mooyee si kale yuusan u geeriyoonin allahna wuxuu leeyahay tabaaraka wa taala xadiithul qudsiga anugu waxaan ahay malaha adoonkayga agtiisa wuxuu iga malaystuu leeyahay laakiin goorma malaha aad malaysanaysaa waa marka dadaashood khayrka la timaado xagga rajada u bado waa markay geeridu kugu soo xaadirtay laakiin mar walba cabsidu yeena ka bixin isdhiganin waxa kamida asbaabta keeni karaysa in ay khaatumadu ku wanaagsanaato inaad ka fogaato meelaha mawaatinta iyo goobaha shubuhaadka falsafaadka iyo bid'a diintaada iyo caqiidadaada khatar gelinaya dadkoodana ha la fadhiisanin meeshoodana ha tagin haddaad ismahadisood istiraado may anugu nin weyn baan ahay 60 jir baan ahay 50 jir baan diinta ku soo gaadhay aqoonna waan leeyahay maxay iga qaadaysaa shubuhaadka iyo wax la sheegay iyo mid falsafo wata iyo mid mubtadica waa iskala fadhiisanaya dad fara badan baa intay saa isu mahdiyeen baa hal dhibic oo shubha ah oo qalbigooda ku dhacday baa waxay keentay khaatumada inay ka hadlo maxaa yeelay qulubtu waa jilicsan tahay shubahaadkuna aad bay u dafaan dadka sidaas daraaddeed dadka ahlul baatilka ahlul bid'a inxiraafka ku sugan ha la saaxiibin ha la fadhiisanin ha dhagaysanin ha gelin meelaha ay ku jiraan halis baad ku jirta waa mid haysata da'yar fara badan oo maanta joogta oo social media intay galaan meeshay wax ka qaadanayaan cid ay wax ka qaadanayaan aan garanayn waxay galayaan website-yo waxay galayaan Facebook-yo waxay galayaan mowqicyo aynan garanaynin cid ka hadlaysa waxa uu yahay markaas waxay ka soo baxayaan ayagoo diintoodii kharibantay oo falsafad iyo caqiido kala qaatay bal inxiraaf iyo zandaqa ku dhacday marka ka fogow meelaha shubahaadka qalbigu waa jilicsan yahay si fududna waa ku leexdaa inxiraafku waa ugu dhacay ha ugu dhawaanin durug oo xumaanta ka durug nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu inoo sheegay dajaal markuu yimaado ka cararabu nabigu sallallahu alayhi wasallam oo ha u dhawaanina maxaa yeelay ninba intuu ismahadiyo ayuu leeyahay aniga muxuu iga qaadi karaa waa u tagaya shubahaadku ku furaya markaasuu diinta ka saaraya ninkii sii ordayay nagnag lahaa ilaha maxaa laga qaadi karaa wax yar kadib wuxuu rumeeyay dajaal inuu ilaahay yahay sababtu wax way shubahaadku furahayay baa qalbigiisa ku dhacay saas daraadeed mawaantinta shubahaadka ka fogow oo diintaada la carar oo fitanka kala fogow halis wey ugu dambeynta wax way asbaabta khaatumada wanaagsan keena waxa kamida inaad ilaahay barido oo rabbiga u tadarrucdo oo ilaahay inuu ku sugo khaatumo wanaagsan weydiisato sidaan ka sheegaynay nabiyullaahi yuusuf calayhi wa ala nabiyina salaatu wassalaam tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin allah wa ana muslima idil dadkii wan wanaagsanaana i haleeshiyo iga dabagee nabigeena muhammad sallallahu rabbi wa salaamu alayhi ducadiisi bay ahayd ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik allah qulubta rogrogow qalbigayga diinta ku allah qulubta rogrogow qalbigayga xagga daacada u leex ilaahu khaatumo wanaagsan igu dil nagu ina baraya nabi muhammad sallallahu rabbi wa salaamu alayhi saas daraaddeed rabbi bari ilaahay baa bixiya adoomadan gadgadoomayad arkaysa midba uu meel ku dhacayo shalay midkii aad ku ogeyd isagoo muslim ah maanta waxaad arkaysaa isagoo kaniisada bir garaacay midkii aad shalay ogeyd ee mustaqiimka waxaad arkaysaa isagoo zindiiq oo mulxid oo diintiiba la dagaalamayo oo usuushii diintaba ka shakisan baad arkaysaa
midkii saalix ee wanaagsanaaye shalay safka hore ku jiray maanta waxaad arkaysaa isagoo baararka iyo mawaaqiicda cisyaanka iyo dunuubta dhex taagan baad arkaysaa. allah tabaaraka wa tacaala baa quluubtan gacanta ku haya ee ilaahay aad u bari tabaaraka wa tacaala inuu ku sugo khaatumo wanaagsanna ilaahay kugu dilo tabaaraka wa tacaala. innama alumuuru bilkhawatiim, dadaalkaaga ha yaraysanin, allahna kaalmayso tabaaraka wa tacaala. ibni aadam icmal maa shi'ta fainaka majziyun bih وعش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه وكن كما شئت فكما تدين تدان. صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والمسلمين بشر فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا حي يا قيوم. اللهم أنجل عبادك المستضعفين وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان يا حي يا قيوم. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.